nin ka mid yahuudii Madiina ayaa inta uu soo maray gabadhan dhabarkeeda xijaabkeedii ku dabray kursigii ay ku fadhiday markii ay damacday inay kacdo ayay maradii ka dhacday yahuudii meesha joogtay oo dhan ayaa qosol iyo jees gabadhii ula jeestay nin ka mid saxaabada oo goobta ka agdhowaa ayaa markiiba surka ka jaray ninkii yahuudiga ahaa ka hor intaysan yahuudii kale saxaabigan dilin warkii ayaa soo gaaray nebiga naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee oo amray dagaal ka dhan yahuudan degganayd magaalada Madiina waa xalqadda 16aad ee barnaamijkeenna siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam oo aynu ku eegi doonno sida ay yahuudii Madiina u jabiyeen dastuurkii uu nebigu dejiyey iyo waxa lagu sameeyey magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waabari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta sidaynu soo aragnay nebiga sallallahu calayhi wasallam markii uu yimid magaalada Madiina wuxuu dejiyey dastuur uu dhex dhigay dhammaan bulshooyinkii wada deganaa magaalada waxaynu ogeyn in yahuudda ku nool Madiina ay ahaayeen 3 qabiil oo kala ahaa Banu Qaynuqaac, Banu Qurayda iyo Banu Nudayr waxa dhacday in yahuudii Madiina aysan ilaalin qawaaniintii heshiiskan dabcanna yahuuddu weligoodba caan ayay ku ahaayeen inay heshiisyada buriyaan oo ilaa xilligii Nabi Muuse ma jirin heshiis ay sidiisa uga soo baxeen ama u ilaaliyeen waxa dhacday inay siyaadeen khilaafaadkii soo noqnoqonayay ee dhex marayay muslimiinta iyo yahuudii Madiina nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa tagay suuqii reer Banu Qaynuqaac suuqan wuxuu ku yaalay koonaha magaalada kadib wuxuu yidhi yahuuday iska ilaaliya oo ka taxadara inay idinku dhacdo tii ku dhacday Quraysh oo uu ula jeeday nebigu jabkii Quraysh ka soo gaaray dagaalkii Badar nabiga sallallahu calayhi wasallam oo sii wata hadalkiisa ayaa yidhi sidaad ogtihiin waxaan ahay nebi alle soo diray waxaadna ka heli karaysaan kutubtiinna yahuudii oo jees uu ku jiro ayaa tidhi maxamedow ha ku kadsoomin oo ha namoodin inaan nahay sida reerkaaga oo kale waxaad la dagaalantay reer aan dagaalka waxba ka aqoon oo ay ula jeedaan Quraysh waxaadna ku heshay fursad allaan ku dhaaranaye haddii aan kula dagaalanno indhahaagaad ku arkaysaa waxa uu yahay dagaal yahuudda ayaa hadalkan ula jeeday inay ka xog badan yihiin kana xeelad sareeyaan Quraysh haddii ay dagaalamaanna ay ka adkaanayaan nebiga iyo saxaabadiisaba nebigu sallallahu calayhi wasallam waxba uma jawaabin oo uu ka tegey yahuuddiina waxay ahaayeen kuwo mar walba carqalad ku ah muslimiintii Madiina ka hor inta aysan imaan maalin wax kasta ay isbedeleen shalaytana ku ridi doonta waxa dhacday in maalin maalmaha ka mid gabadh ka mid ahayd muslimiintii Madiina ay tagtay suuqii reer Banu Qaynuqaac waxay rabtay inay dahab ka iibsato mid ka mid raggii joogay suuqan ayay u tagtay waxay weydiisay qiimaha dahabka markaasuu qiimo siiyey kadib waxay damacday inay gorgoriso oo ay qiimo macquul geyso wuxuu ugu jawaabay waxaan ku samaynayaa qiimo dhimis laakiin shardi ayaan wataa kaasi oo inaad iska saartid indhashareerka ama wejigashiga aad gashan tahay dabcan gabadhii muslimadda ahayd way diiday kadibna waxay damacday inay ka kacdo kursigii ay ku fadhiday waxa dhacday nin ganacsadahan saaxiibkiis ahaa oo gabadhan gadaasheeda joogay ayaa intii ay doodayeen gabadha iyo ninkan kursigii ay ku fadhiday ugu xiray marada markii ay kacday ayuu xijaabkii oo dhan ka faydmay oo wuxuu ku haray kursigii yahuudii meesha joogtay ayaa gabadhii qosol iyo maadaysi ka dhigatay iyadiina qiilo ayay afka furatay nin ka mida muslimiintii Madiina oo goobta ka agdhowaa ayaa markiiba u soo gurmaday wuxuuna dilay ninkii yahuudiga ahaa dabcan yahuudii suuqa joogtay ayaa ku goobatay wiilkii muslimka ahaa isagiina meeshii ayay ku dileen dhacdadan ayaa gaartay nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuuna markan go'aansaday inuu si gebi ahaana u soo afjaro dhibaatada qabiilkan nebiga sallallahu calayhi wasallam oo marka uu dagaal aadayo uga tegi jiray magaalada Madiina mid ka mid saxaabadiisa si aysan hawshii magaaladu hakad u gelin ayaa u sii wakiishay xukunkii magaalada saxaabigii la oran jiray Bashiir ibn Cabdilmundir hogaankii ciidankana wuxuu u dhiibay adeerkiis Xamza ibn Cabdimudallib waxayna nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo ciidankiisii u soo jihaysteen xaafaddii reer Banu Qaynuqaac kuwaasi oo iyaguna markii ay arkeen ciidamadan ku soo socda
bilaabay inay soo xirtaan albaabada qalcaddii ku wareegsanayd xaafaddooda. hadda waa raggii maalin aan fogayn u hanjabayay muslimiinta ee ku lahaa haddaan dagaalanno waxaad baranaysaan wuxuu yahay dagaalku. markii dhab la tegey oo ay muslimiintu seefahooda soo qaateenna waxayba soo xirteen albaabadii ku wareegsanaa qalcaddooda. nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa go'doon geliyey yahuuddan 15 maalmood oo xiriir ah. wuxuu go'doonkan ku socdo waxaa soo farageliyey madaxa munaafiqiintii madiina cabdilaahi ibnu salool. ninkan ayaa maalmahaas soo islaamay. wuxuu ka dalbaday nebiga inuu u naxariisto oo uu cafiyo, laakiin nebiga sala allahu calayhi wasallam oo dhowr jeer oo hore u digay una dulqaatay ayaan ka yeelin dalabkan cabdilaahi binu salool, oo wuxuu nebigu ku adkaystay in lala dagaalamo reer banu qaynuqaac. laakiin ninkan kama quusan dalabkiisa ilaa markii dambe uu nebigu ka yeelay. laakiin cafintan wuxuu ku xidhay shardi, kaasi oo ah inay isaga baxaan magaalada madiina, dibna aysan ugu soo noqon, hantidoodana ay ka tagaan. sidii ayaa la sameeyey. yahuuddii banu qaynuqaac waxaa laga daadgureeyey deegaankoodii. hal qof oo ka mid ahna kuma harin magaalada madiina, oo waxay u kala jihaysteen dhulal kala duwan oo ay ka mid tahay shaam. muslimiintiina hantidoodii ayay qaniimaysteen. waxaa la ogeysiinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ciddii u baahan in waalidkood looga soo gudo acmaasha cimrada inta lagu jiro bisha fadliga badan ee Ramadaanka, in hawshaas ay u qabanayaan culimo ku sugan magaalada Makka oo aqoon u leh axkaamta xajka iyo cimrada. sidoo kale si toos ah ayay kula socodsiinayaan intay hawsha cimrada ku jiraan, muuqaalana way kaaga soo duubayaan. haddaba wixii faahfaahin ah kala xidhiidh WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. dhacdadan ku dhacday qabiilkan yahuuddii kale ee madiina kuma cibro qaadan, balse waxay sii wadeen madax adeegoodii iyo ballan jabintoodii. muddo yar kadibna waxay geysteen khiyaano kale. khiyaanadan labaad waxaa ka horaysay dhacdo xanuun badan oo ku dhacday muslimiinta. waxaa dhacday inuu nebiga u yimid nin la odhan jiray abuubaraa caamir binu maalik ibnu jacfar. ninkan ayaa ka dalbaday nebiga sala allahu calayhi wasallam inuu ku daro wafdi diinta soo bara dadkii reer najd. nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi, waxaan ka walwalsanahay in haddii aan wafdi kugu daro ay dhibaato soo gaarto. laakiin caamir ayaa ugu jawaabay nebiga inuu isagu kafiil ka yahay oo aan waxba loo geysanayn. nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa oggolaaday dalabkii ninkan, wuxuuna ku daray 70 saxaabi oo ahaa saxaabadii ugu badisay qur-aanka. sidii ayayna wafdigii u raaceen ninkan. markii ay soo gaareen ceel la odhan jiray ceelka macuuna oo ahaa ceel ay lahaayeen reer bani caamir iyo reer kale oo la odhan jiray bani saliim, ayaa waxay ugu yimaadeen nin la yidhaahdo caamir binu dufayl. ninkan ayaa hal mar dilay saxaabigii horkacayay 70 saxaabi oo la odhanayay xaraam binu mulxaan. kadibna wuxuu amray in la dilo saxaabadii kale oo dhan. waxaa dhacday in saxaabi la odhan jiray camro binu umaya oo uu la socdo saxaabi kale ay ku soo aadeen meeshii uu dilku ka dhacay. waxay meel dheer ka arkeen ceelkan oo ay korkiisa shimbiro dul heehaabayaan, xilliguna waa habeennimo. camro ayaa dareemay in meesha ay wax ka dhaceen. way u soo dhowaadeen si ay u soo eegaan, oo waxay dul yimaadeen ceelkii. mise 70 saxaabi oo uu soo diray nebigu ayaa meesha lagu wada laayay. 2 saxaabi ayaa soo aaday dhanka madiina si ay nebiga u ogeysiiyaan waxa lagu sameeyey saxaabadii uu wafdiye ahaanta u diray. intii ay waddada sii socdeen wuxuu arkay 2 nin oo meel marayay. camro binu umaya ayaa mooday inay la socdeen ciidankii dilay saxaabadan. kadib 2 nin ayuu dilay, wuxuuna u yimid nebiga isagoo u sheegay musiibada dhacday. sidoo kale wuxuu u sheegay 2 nin ee uu waddada ku soo dilay nebiga sala allahu calayhi wasallam, oo ay murugo ku noqotay warka dilka saxaabadan ayaa haddana ka sii murugooday. 2 nin ee uu dilay camro oo waxay ahaayeen 2 nin oo uu magangelye siiyey nebigu, naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee. kadib nebiga ayaa go'aansaday inuu bixiyo magta ama diyada 2 nin. qabiilkii saxaabada khiyaanay ee dilayna wuxuu iyagana u qabtay muddo bil ah. kadib nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa soo aaday dhanka yahuuddii reer banu nudayr oo sidaynu soo sheegnay dastuurkii magaalada madiina u yaalay wuxuu dhigayey in dhib iyo dheefba laga wada qayb qaato. wuxuuna nebigu ka soo doonay yahuuddan inuu ka dalbado inay la qaybsadaan muslimiinta bixinta magta 2 nin
yahuudi ayaa ku tiri nebiga waan bixinaynaa ee na sii sug. xilligan nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaa la socday abubakar, cumar iyo cali. wakhtiguna waa habeennimo. inta ay nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo saaxiibadiis ay sugayaan yahuuddan, show waxayba ku maqnaayeen oo ay maleegayeen dhagar ka dhan ah nebiga. waxay qorsheeyeen inay shirqoolaan. si ay u shirqoolaanna ay guri ka mida guryihii xaafaddan oo uu hoos fadhiisan lahaa nebigu sallallahu calayhi wasallam ay saarayaan nin iyaga ka mid ah, kaasi oo ku soo ridaya nebiga dhagax weyn, sidaasna uu nebigu ku dhimanayo. nebiga sallallahu calayhi wasallam waxaa markiiba lagu soo dejiyey waxyi lagu sheegayo dhagartan. markii waxyigu ku soo degayba wuxuu ku wargeliyey saaxiibadiisii la socday inay ku noqonayaan madiina. markii uu madiina yimid ayuu u sheegay waxyigii ku soo degay, wuxuuna amray in dagaal loo diyaargaroobo. nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisii ayaana seefaha u soo qaatay si ay ula xisaabtamaan yahuuddan. markii ay go'doon geliyeen xaafaddii reer banu nudayr ayaa waxaa sidii caadada ahayd ergo ahaan nebiga ugu yimid madaxii munaafiqiinta cabdilaahi binu salool, wuxuuna isku dayey inuu nebiga ka dalbado inuu la heshiiyo yahuuddan. laakiin nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa diiday. yahuuddii oo ka quusatay iskuday kasta ayaa dalbatay in magangelyo la siiyo oo ay ka baxayaan madiina, xoolahoodana loo oggolaado inay qaataan. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u oggolaaday. kadibna sidii ayuu qabiilkii labaad ee yahuudda uga guuray madiina, iyagoo kala aaday shaam iyo khaybar. labadan dhacdo ayaana bannaanka u soo saartay sida yahuuddu ay mar kasta khiyaanada iyo dhagartu caado iyo dhaqan ugu tahay. intaas ayaynu ku soo gunaanadeennaa muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey haylaawin inaad leeg inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xidhan. mahadsanidin.